ومركا يدين سو غاريبا muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo finalkii ciyaaraha adduunka oo hadda soo gabagaboobay ayaa wuxuu noqday mid kamid ah goobaha ay ku hardamaan siyaasiyiinta ku kala tagsan xasuuqa lagu hayo shacabka reer Gaza iyo waliba colaadda hadda ka socota bariga dhexe waxa la oran karayaa ciyaaraha adduunka ee markaas kubadda cagta la ciyaarayay ayaa waxay noqdeen kuwa siyaasadaysan isla markaasna ay isku arkaan ama ay ku dagaalamaan garabka Israa'iil taageersan iyo dadka kale ee xorta ah ee reer Falastiin taageersan ama diidanba xasuuqa lagu hayo dadka shacabka ah ee reer Gaza ومركي ugu horeysay oo la arkayo in ciyaaraha adduunka ay sida isugu bedeleen goob saameyn ku leh colaadda ka socota bariga dhexe bal arinta ayaynu falanqeyn doonaa waxaan idin la wadaagayaa sida maamulka dhigicabka ee Israa'iil ay dharka ola baxeen una taageereen kooxda Argentine iyo sida dhanka kale shakhsiyaadka caanka ku ah taageeraha shacabka reer Falastiin iyo qadiyadda reer Falastiin ay dhanka Spain uga soo jeensadeen ugu dambeyntiina ay guushu raacday dadkii anigu aan ku jiray ee taageersanaa qadiyadda reer Falastiin iyo waliba kooxda Spain soo dhawaada saaxiibayaal meel buu joogtaan iyo soo muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba taariikhdu 20 July 2026 waana markii ugu horeysay maanta hawada ku kulmayno fadlan muuqaalku idin soo gaar muuqaalka like saara channelka isku xira si aad ula socotaan wardii aan bilaabo ka Xuseen ahaan maahi dadka xilligan aad ka u xiiseeya ciyaaraha way jirtay xilli aan dhalinyaro ahaa ciyaaraha aan daawan jiray Premier League iyo Champions League iyo World Cup iyo European waxa ay dhan xilli aan waqti badan ku bixin jiray way jirtay laakiin hadda waxyaalaha inta badan aan waqtiga ku bixiyo waxa kamid ah caalamka ka socda waxa caalamka ka socda saameynta ay dadkeena la leeyihiin maxay tahay maxaynu ka fahmi karnaa waliba waxaan kamid ahay dadka waxa ay soo gudbinayaan qalbiyan u aaminsan waqti badan ku bixiyo si walba ha ahaato ciyaarihii adduunka dhowr game ayaan ka daawaday laakiin gamekii ugu dambeeyay ee caawa soo gabagaboobay ee finalka ahaa wuxuu ahaa game saameyn weyn markaas yeeshay intii la sugayay ciyaarta finalka ayaana la kala miirmay oo finalku uu noqday mid siyaasadaysan iyo mid qadiyadda Falastiin iyo dhibaatada Israa'iil ay bariga dhexe iyo Falastiin ay ku hayso mid sida loo kala miirmay ayay noqotay ka hor inta aysan ciyaartu aysan dhicin waa la sii ogaa sida loo kala miiran yahay waana la sii ogaa sida xidigaha ciyaarta finalka ciyaaraya ay aragti ahaan markaasi ay u kala fog yihiin marka waxaan isku dayaa inaan marna Argentine idin tuso sida Israa'iil ugu dhaxmilan tahay iyo sida ay Yuhuud u yihiin maxaa sababaya in la yiraahdo Argentine waa Israa'iil waa qadiidan aad loogu baraarugsanayn ka hor ciyaaraha adduunka laakiin maanta wixii ka dambeeya cid walba oo caalamka waxay xaqiiqsatay in Argentine iyo Israa'iil ay isku koox yihiin waxa la xaqiiqsaday in waxyaalo badan oo kooxda Argentine laga tirsanay sida in xiriirka kubadda cagta ee FIFA ay mar walba garabka Argentine ay jiraan tuunkaasi hadda wuu cadaa wixii hadda ka dambeeyana caalamku wuxuu noqday meel transparency ah meel aan lagu kala dhuuman karinin iyo meel la arkayo waxyaalaha qarsoon oo dhan wana faa'iidada ay hadda leedahay social media iyo warbaahinta la fududeeyay oo markaasi qaab fudud laga dhigay ayaan tar warbaahinada waaweyn BBC-da VOA-da sharciyo iyo maxalli dawladda shaqeeyo gadaal ka riixaya dhibaato badan bay ummadda ku hayeen xogaha ay soo gudbinayaan waxay ahaayeen xoga la filter gareeyay xoga shaandhayn lagu sameeyay xoga xaqiiqadii laga tirtiray xogo message-ka ummadda loo soo gudbinayo uu yahay message dad gaar ah markaas uu adeegay laakiin sida ay baraha bulshada u soo baxeen saxaafadda madaxa banaan loo helay waxyaalo badan oo qarsana ayaa banaanka u soo baxay waana waxyaalaha xilligan FIFA qaawiyay qaar kamid ah si walba ha ahaato intaysan ciyaartu bilaabanin ka hor ay Israa'iil banaanka u soo baxday oo ay taageero weyn u muujisay maalmihii hadda la soo dhaafay kooxda Argentine waxay caadi u sheegtay Israa'iil waliba marka la fiiriyo mid kamid ah wasiirada dhigicabiyaasha ah ee Israa'iil ayaa inta public u soo istaagay wuxuu sheegay in askarta Israa'iil intooda badan ba ay asal ahaan ka soo jeedaan dhankaasi Argentine كل إسرائيلي patriot tomar Argentina. Vamos Argentina.
وهذا السوين وقبصدي ورباهين عالمك وانا حق اي داد بدن markaasi ay ku tooseen inta kaliya maahan wasiirka arrimaha dibadda ee Israel ayaa sidoo kale meel public ah ka sheegay in koobka adduunka la geeyay Argentina waa dhacdo kale oo ayaduna caalamka soo jiidatay ummadda tustay sida Israel iyo Argentina ay isugu dhaxmilan yihiin inta kaliya maahan labadii dhigyacab waa Ben Gvir iyo Benjamin Netanyahu ayaa inta aysan ciyaarta bilaabin ka hor ayaguna banaanka u soo baxay Benjamin Netanyahu wuxuu yiri waxaan taageerayaa Argentina waxaan u rajeynayaa guul iyo arrimaha la midka waa talaabo kale oo weyn oo banaanka u soo saartay xiriirka ka dhaxeeya Argentina iyo waliba Israel Benjamin Netanyahu wuxuu sheegay in xiriirka kala duwan oo dhinacyo badan ah ay Argentina iyo Israel ka dhaxeeyaan laakiin ma uusan sheegin nooca xiriira oo markaas ka dhaxeeya dhanka kale wasiirka amniga Ben Gvir ninka la yiraahdo mid ka mid ah shakhsiyaadka dhiiga dadka shacabka ee reer Falastiin aad u daadiyay kuna faraxsan inuu daadiyo kuna suntan shakhsiyaadka wanted-ka waxa loogu yeeray maxkamadda adduunka ama ICC ama ICJ qolinka loogu yeero ee United Nations-ka wanted-ka dacwado badan ay ku furan yihiin ayaa asaguna si public inta u soo istaagay yiri waxaan taageersanahay koobka la doonaynaa aan garab taaganahay aan jecelnahay Argentina waxa la oran kariyaa marka maamulka Israel oo dhan ayaa banaanka soo istaagay waxa sidoo kale arkay gudaha magaalada Tel Aviv inta aysan ciyaartu bilaabanin intii World Cup-kii uu socday finalkii ka hor iyo arrimaha oo dhan in ay yuhuudu aad u taageerayeen Argentina iyo inay aaminsan yihiin inay isleeyihiin waxa hadda marka la ogaanayaa waxa meesha ka dagaalamayaba dadka baabiinaya numberkooda ugu badanba waa Argentina waxa sidoo kale soo baxay xoga sheegaya in ciyaartoydu ciyaaraysa kooxda Argentina numberkooda ugu badanba ay ayaguna aaminsan yihiin diinta Juuga marka dhankaasi waa dhankaas waxa sidoo kale aan ku kabayaa sida xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu ay isugu dhaxmilan yihiin waana halka ay ka iimaanayso in la yiraahdo Argentina FIFA la shaqeysa waayo waxaynu ogeyn ninka ugu sareeya xiriirka kubadda cagta ee FIFA in dhawaan uu sameeyay qalad weyn roose la siiyay oo Mareykan in la soo celiyay ciyaartii finalka hadda intay socoteen waxa la arkayay asaga iyo Trump oo meel hore aad moodidba inay farac ciyaarayaan isku qosqos lahaya isku dhagdhagaya wax ka dhaxeeyaan aan la aqoon marka waxay aadaas ku tusaysaa in xiriirka kubadda cagta ee FIFA la yiraahdo ay tahay xiriir jeebka ugu jira Mareykanka iyo Israel dhankaas marka waa Argentina iyo xiriirka ka dhaxeeya kooxda dhigyacabka ee doonaysa in la baabiyo dadka shacabka ee reer Falastiin dhibaatadana ka wada bariga dhexe dhanka kale marka la fiiriyo waa maxay xiriirka ka dhaxeeya Spain iyo waliba reer Falastiin marka ugu horeysa magaalada Gaza markaynu fiirino hal arkaya in reer Gaza ay aad u taageersan yihiin maxaa la yiraahdaa Spain xiriirka ka dhaxeeyana uu yahay xiriir weyn inta badan dadku aad uga fiiriyaan laakiin Spain waxay xuduud la leedahay Morocco dad badan oo Carab ah ayaa degan asalna waa meelihii ay ka talin jireen muslimiinta marka Spain xiriir weyn ayay la leedahay dadka muslimiinta muslim badan ayaa degan asal ahaan dadka degan xiriir badan bay leeyihiin ama qaraabay leeyihiin ama dhan bay mataqaanaa ka wada dhasheen ama waalid bayin dad badan muslimiin ah oo Carabeedna xoog ay u degan yihiin laakiin taageeraha la arkayay in maalmaha la soo dhaafay warbaahintu ay ka soo taminayeen gudaha magaalada Gaza oo Spain loo fidinayay inta badan waxay ka iimaanaysay laba arrimood ay ka iimaanaysay marka ugu horeysa waa doomihii Flotilla dadkii soo raacay doonayay inay u gargaaraan reer Gaza ee doomaha soo fulay majority-gooduba waxay ahaayeen Spanish bay ahaayeen boqolkiiba 90 Spanish bay ahaayeen meelaha ay ka soo baxayeen Spain bay ahaayeen marka dhankaasi waa meesha ugu horeysa oo laga arkay sida Spain ay u garab taagan yihiin reer Falastiin dhanka kale marka la fiiriyo ninka dhalinyarada ee xidiga ee Lamine Yamal la yiraahdo ayaan dhawaatii markii ay Barcelona koobka qaadaysay ayuu si public inta u soo istaagay ayuu wuxuu qaaday calanka Falastiin wiilkaanu asal ahaan waa reer Morocco
qoyskiisu waa muslim halkaas ayuu asaguna xiriir kale leeyahay qadiyadan arrintaasi marka taageero xoog leh ay Spain iyo waliba kooxda Barcelona u soo jiiday oo dhammaan dadkii sympathy-ga u hayay qadiyada Gaza aad ay hadda u taageerayeen xulka Spain dhanka kale marka la fiiriyo ra'iisul wasaaraha dalka Spain waa mid ka mid ah siyaasiyiinta awoodda leh ee reer galbeedka oo banaanka soo istaagay everyday taageersan qadiyada Falastiin waa ninkii aqoonsaday inay dal madax bannaan tahay Falastiin hadda dhawaan wuxuu aqoonsaday inuu mataqaanaa waraaqaha ka gudoomo safiir ay ku leedahay Falastiin gudaha dalka Spain marka asagaaba bro mataqaanaa asaga wuxuu yahay marka asaga bro Palestine aad ayuu taageeraa marar badan waxay af dhaafeen Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu wuxuu si cad u diiday ra'iisul wasaaraha Spain in hawada Spain laga weeraro Iran iyo waliba Gaza iyo in xataa ay qayb ka noqdaan maadaama ay NATO ka mid yihiin waxyaalihii uu doonayay Trump ayuu marar badan diiday weeraradii lagu qaaday maxaliyada Iran way diideen cunaqabatayntoodii way diideen inay maraakiib dagaal geeyaan way diideen si cad ay Spain uga hortimaaday doonitaanka Trump iyo Benjamin Netanyahu marka waxa la oran karayaa qaranka Spain iyo dawladda Spain iyo xidigaha Spain iyo shacabka Spain ba meel cad ay ka taagan yihiin qadiyada Gaza iyo reer Falastiin marka garonkii waxa ku dagaalamay labadaas garab caan ku ah dawladoodu ay Falastiin tahay iyo garab la arkayo inay Israa'iil ay yihiin ciyaar marka dhanna xiisa kale dhanka kale tan siyaasadda maanta caalamka ka jirta ku dhaxmilan ay noqotay finally waxa guuleystay Spain aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii Spain taageeray inta isla ciyaartu bilaabanin ka hor ayaan qoraalkan yarka ku soo qoray barta aan ku leeyahay Facebook dad baa ila yaabanayo waxay lahayd Xuseenow ciyaarta kada Soomaalidu waa iska daad waraarac waa dad aan qadiyad lahayn wadan inta badan Soomaalida aan indhaynin waxyaalaha caalamka ka jira waxaan soo qoray qoraalkan waxaan sheegay Spain waxay caawuhu tahay ayaan iri magaca dadka xorta ah baan iri xidigooda Lamine Yamalna waa astaanta reer Falastiin halka Argentine ay caawu taageerayaan dhammaan saxnuuniyiinta iyo maamulka Israa'iil marka caawu ciyaartu waa mid siyaasadaysan waana mid qadiyad weyn xambaarsan waxaan ku soo koobay anigu Spain ayaan taageersanahay adduunka taageersantii markaysan dhanka kale markii la fiiriyo xataa warbaahinada waaweyn ee u ololeeya Iran iyo dadka caanka ah ee taageera waxay markiiba soo sameeyeen sawir AI ah oo ciyaartooygii goolka dhaliyay Ferran Torres ee goolkii Spain ay ku badiyeen dhaliyay waxa loo soo xiray dharkii ciidamada ilaalada kacanka oo waxayba Iran markiiba ugu yeereen inuu general yahay oo General Torres ay ugu yeereen aad ayaa sawirka loo wareejinayaa saacadii hadda la soo dhaafay marka waxa la oran karayaa dadkii xorta ahaa dadkii Falastiin taageerayay iyo qadiyadii Falastiin iyo Lamine Yamal ayaa badiyay ayaa la oran karayaa Messi iyo Yahuudina iyagu ooyaya ayay garoonka ka bixin marka sidaas ciyaartu waxay ahayd ciyaar xiiso leh dhinacyo badan oo siyaasadeed iyo qadiyada waaweyn markaasi u huray adiga daawanaya taageeraysa ma Messi iska taageeraysan dadka qadiyada fahansan ee Isbaanishka taageer